السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامي ومدى الصوماليين حل أرورا إيتو هاي وحاوي هدواغا ورسن بالغو بريجري وكحوم هاي تشيدان مركو هبين كوغا قشوه سبحي واسا نكوميال ورسن نكوميالو مركا هلايغان عليها هذا وحربا إنان مدى الصوماليين هالكا اوغا شيغو اوغا عدايو عنتا سوكو بربري آرنجان إيو دني وكبيو حاكد ويا لبلاس iyo beesha Ciise Maxamuud oo taageersan waxa la yiri gardaro ma dhacdo ilaa ay garab og tahay dani iyo Aranjan labada tanwiil in shidda la leeyahay ee farta dheeraatay noqotay farta cidida ka baxdo waa la jiraa iyo ninka la leeyahay Xasan Shariif Abgaal iyo Maxamuud Shiddo waxa weeye kaligood wax ma sameeyeen danina qorshaha kama gadeen haddii aysan tolkood Ciise Maxamuud garab ka haysan marka ummadda Soomaaliyeed sida ogaada Puntland waa burburtay dadkaasina ku burburtay waxaan idin sheegayaa anu halka dhowr kalmadood baan ka oranayaa horta dani halka waxaan ka oranayaa daniyow waxa la yiri geel ciyaal qaaday geel caruuri qaaday ma foga warsangeli shirka maamul goboleedyada isugu tagaysan iyagoo maamul goboleeda iyaga dhulbahanta oo wada socda ba halkaas ay isku arkaysan insha Allah ta'ala ama Ahmed Karaash oo madaxweynaha ba kula soo fariisan Ahmed Karaash u malayn mayo dulinimo inuu qaayibayo ku ag fadhiyo u malayn mayo ama dooba madaxweynaha ba kula soo fariisan waxa weeye horta shirkaas inoo balana wada hadal bahaadkaas ka haray inta ka horeysa geel caruur qaaday ba tahay marka iska sii bacso guuleysatay iska dheeh baan ku leeyahay inta ku dhaafi mayo Aranjan waxaan leeyahay jiir haan ku weynaade baatiin Talyaani Roma jooga baatiin waxa weeye dad baa idin soo doontay oo ehelin mooday oo gacal idin mooday idinkii Ciise Maxamuud ba gurigiina ku yimi marka Soomaalidu dhaqan waxay walahayd martida qofka xataa hadii walaalnimo aadan u xeerinayn oo ehelnimo u xeerinayn oo waxa weeye Soomaalinimo u xeerinayn marti hadaa warsangeli marti ka soo qaadeen waxay ahayd martidu birmageyda jirtay suldaankiina ciidamada ka turtaan ina xabad waxa weeye isagoo sii socda la dhacdaan baarlamaankiina u daadataan wiilashii waardiye aha kuleysaan waxa weeye de waxaasi Soomaaliyada ka garnaqi doonta suldaanka warsangeli baan ugu horeysiinaya suldaano wuxuu kugu dhacay waa la socotaa kaaga sheekeynay wuxuu kugu dhacay waa la socotaa kama xumi tii hore kama xumi nabar weyn iguma hayso sababta dal iyo dad ka tiiba oga waxa weey dad tashan kara warsangeli saldaneedaha meel magac la ka soo jeeday dhul la haysta nin laba ooyaan aan ahayn waa ogahay wixii dani iyo Aranjan iyo Ciise Maxamuud iyo Garowe kala kulmay oo xabad laha oo dhiig laha oo bahdil laha kama xumi waxaan se ka xumahay oo ayaan daraa hadalka saaka Garowe yaala baan ka xumahay oo in Shiddo iyo in Abgaal iyo dani iyo Ciise Maxamuud isla dhaxmarayaan hadalkaas oo suldaanka yaa laga walwalin waa 40 kun baan siinayna warsangeli markaan maqta u tirino baan magdheeri isaga siinayna 40 kun baan u tirinayna waa 40 isma dhaqaaji karo meel ma aadi karo ma hadli karo nagama tagi karo shalay baa faroole sagaalka xildhibaan warsangeli intuu ka xoogay oo sagaal wahaabi oo codeeyo intuu ku qortay in Shiddo ba saaka ku warmay baan 40 guriga Cabdiraxmaan faroole ku siinay markaas wuu noo qoslo biir 40 in Shidda saaka ku sheekeynay marka de 40 laha la sheegaya noqonaysa 40 laha la sheegayo garan mayo 40 meel kasto ka heli kartaa de waxay ku kala macaan yihiin 40 dadka ka hesho ama Soomaali Maxamed ka hesho iyo 40 ka dani ku dhimada iyo Aranjan iyo Ciise Maxamuud waxay ku kala duwan yihiin oo ku kala socon yihiin garan mayo nin waxa weeye kama liidatid garaad Saleebaan maalintii dhaweyto markii shantiisii xildhibaan la dhacay uu yiri meesha waa lagu kala tagayaa afka furtay kama liidatid maanta waa hadli tolka waajihayni suldaanka maxaa ku nidaamkii siyaasiga ahaa oo lagu heshiiyay hadii isagii la isku laayay oo dadkii saa loogu kala tagay adiga maanta mas'uuliyad ku saaran tahay kan dhaqanka dib ugu noqotaa dadkaaga waajihayni ama 40 laha la sheegaya noqon 40 kaaga saa qaadanaysa afkana waa sharootaysanaysa okyaalaha madooba xirnaysa gaariga ku dhacaysa marka wada waa arki doona taariikhdu iyada isqoraysa in Shiddo waxa uu sheegayana ama adiga beenin ama adiga cadeyn inta ku dhaafimayo reer Puntland guud ahaan warsangeli xalay
wixii ku dhacay oo bahdilka Suudaanku kow ka yahay oo dhiigii la daadiyay laba ka tahay oo hoolkii la baarlamaanka oo la weeraray saddex ka tahay oo wiilashii maxaan ku raahdaa dhaawac jiifa afar ka yihiin oo gudoomiyaha xasaanada lahaa ee shalay la doortay ee Dani isagu madaxweyne inuu yahay ugu dhawaaqay laga xisho waayay oo gurigiisa xataa loogu dhacay oo saacada isku weerka laga hayo ay ka mid tahay wixii halka ka dhacay warsangeli reer Puntland uma haysto ma jeerteen uma haysto ana runta idin sheegay maxamuud salaam uma haysto cismaan maxamuud oo Dani ka dhashay uma haysto عمر محمود ما هيستو عيسى محمود يا آرنجان يا دني بيوهستان ورسنجل عيسى محمود يا آرنجان يا دني بيوهستان دني وانيكي أمرك صحيح حيوي أمرك نيكي صحيح اللي يرميش هلا قلو ويه وأمرك سادتك اللي يقول لا يي وقع عنكو دقلاك وادوي آرنجان وادتك خدد الجحي عقلك ماركتي قلك دني هذا لكن عقلك أمرك لها مسكحلا قلك أمرتو ترى هذا صحيح مسكحلا دني كو أمرتي تيسي ما هاين امد آرنجان بأحيد عيسى محمود دول كدتك اللي يقول لايه او ديك اللي قداديه وحوها دول عيسى محمود كما يهلين كما يديدين ووحي يكو تلقلين شلي حلبان عاول داد مركي بارلمان كله ugu hanjabay waxa la socotaan oo dani ugu hanjabay inay Ciise Maxamuud shibtira inta magaalada ku qabteen garowe unuka leh oo niki Umar Maxamuud oo buurtile ka yimi oo waxa weeye garowe dhagax ugu horeeyo la dhigay reer xasiin Umar Maxamuud iyo dadkooda og yihiin ya hadii ilaahay waagi damay iyaga dadka uga baaciyay laba ixtiraamin nin warsangeliya xagee marka Ciise Maxamuud jooga nin warsangeliya xagee u jooga niki dad u xigay oo cawil daad oo reer aadan Umar Maxamuud ninka shalay gudoomiyaha gobolka lahaa oo cuqaashi dadkan ku qaban jiray ha looga ergoon jiray shafka u garaaco yiri garowe unuka leh warsangeli ma u daahaya uma daahaya garowe Ciise Maxamuud maanta hadii baran qof tago oo wax ku gaaraan ma jeerteen ama Soomaali cid kasta haato warsangeli baa mas'uuliyadda qaadaya iyaga waxa laga rabaa cidii falka geysatay oo qofka dhibaataysay inay tiirka soo taagaan oo xaal ka bixiyaan oo hadee waayaan tolo waa naga baxsaday ya ee aan ka xaalna dhahan buuhood la ka dhacdo dhulbaanta laga rabaa boosaas hadee ka dhacdo Cali Salmaan iyo beelaha u badan baa laga rabaa dishiishay hadee gaalkacay ka dhacdo Umar Maxamuud iyo habar gidir iyo Soomaali intii degan baa laga rabaa laakiin garowe ka dhacday garowe laba reer ma degana hal islaam bay leedahay suldaan garaasa oo heliya Ciise Maxamuud cid kuma tarxado wixii halka farxumada ka dhacday raali bay kaga ahaayeen Facebook la fadhiyeen warbaahintii la fadhiyeen marka de Ciise Maxamuud waxa weeye warsangeli dibta ay u geysteen maanta dibtii ugu horeysay oo ay reer Puntland u geystaan maaha waa tii ugu dambeysay oo ugu weyneyd shalay bay cawil daad shafka u garaaceen doraad ba Cabdiwali Maxamed Gaas oo jooga ay haraashment ku sameeyeen oo garaacad maxaan ku raahdaayay markuu yiri dawladda Soomaaliya xiriirka u jaraya khayro idhaaf markuu yiri ay hotelka u fureen oo dheen halka ku shirto garowe unuka leh dani dhehen ninka la dhaho Gaas dhehen gaalkacay adartana maaha garaacad maaha waaw meesha ka timi aad dhehen waxa ka horeysay Faroole markuu madaxweyne ahaa odayaal reer bariya oo Cali Salmaan u badan oo garoonka oo iyagoo dawladda dacwo u ah ya oo wax ka doonaya ilma adeerayaal hal ay sheer garayo gaaro waxaan ku raahdaayay loo istaagay controlka garowe inta loo istaagay lagu garaacay xabad la dhacay lagu dhaawacay marka Ciise Maxamuud waxay la tahay waxa ka waxa ku wada socdaan way ku talagaleen Puntland inay saa u baabi'iyaan anigu maanta waxaan khirbo dad baan leeyahay waa loo ergoonaya intaan ergadu gaarin iyaga ay qabanayaan marka waxay la tahay Ciise Maxamuud waxa weeye hadeese waxa raali ka ahay saaka hadli lahaayeen odayaal weeye waxa weeye culimo leeyihiin waxaan ku iri ma waxa dhici lahaa hoolkii xalay la weeraray oo dhiigi yaalo oo maxaan ku raahdaayay meedkii la aasin oo qaarkii hoolka laga soo saarin ya in la yiraahdo saaka shir baa lagu qabanaya oo gudoomiyaha xil looga qaadaya ma waxa saa wax aqliga galaya oo xildhibaanadii baaskoolad mid walba inta guriga looga tago ya baaskoolad madax laga soo qabtay kii la alush qaadan karina konta ku lisiyay xildhibaanadii meesha yimi lafahooda la baqeen waa eed ma leh dad badan oo waa caada qaatayaal la arkay warnina baqin isaga loo baqa warnimanka gudoomiyahoodii la weeraray oo shalay markay su'aasha weydiiyeen loo hanjabay oo cagaha dhulka ka qaadan lahaa maxay sameyn karaan adeerayaal maxay sameyn karaan waxa ma sameyn karaan in la dilo iyo inay isdhiibaan oo gacanta taagan bay u dhaxeeyeen waxay yeeleen inay isdhiibaan oo gacanta taagan amba saasaan yeeli lahaa
hadhow diyaalkay markaan meesha delayga xoog weyn yahay ka tago markaan meel kale tago waxaan rabaa soo iraahdo marka ciise maxamuud hadaysan dani iyo aaranjaan waxa kula socon dad balaaran oo beel aweeye oo qarana waxa weeye saaka waxay oran lahaayeen almiino bal meydka inta la aasayo bal meydka iyo dhaawaca inta hoolka laga soo gurayo ya meydkii qaar baa ilaa hadda laga qaaday inta laga soo gurayo bal u kaadiya dani hadduu konton xildhibaan haystay shalay ya muxuu hoolka u weeraray muxuu u sugi waayay baarlamaanka ilaa isniinta inta la furayo konton xildhibaan buu haystayba ma haysan hadduu haysan lahaana sidii madaxdii hore guddoomiyaasha u ridi jireen buu u ridi lahaa wuu fariisin lahaa markay fariistaan baa cod loo qaadi lahaa nin konton cod haystaa see u dagaalami karaa ma dagaalameen xildhibaanna ma haysan toban ma haysan dadkan maanta u codeeyena lafahooda u baqeen waxa la yiri waxa weeye usha marka hore waxa la yiri doqonta agteeda lagu dhuftaa miyahay marabaadkan iyada lagu dhuftaa miyahay waxa weeye usha dhoobo ku dhacday xildhibaanada ku dhacday xildhibaanadu sababtoo ah dhoobo xildhibaannimadiisa xubinimadiisa cid kuma haysan guddoonka baa lagu haystay haddana cid kuma haysto guddoonkana dadkaas ugu ahaa marka ciise maxamuudow waxa weeye garowe de waxa ila tahay ruush baa idin soo degaya ruush baa caasimadu noqonaysaa bay ila tahay hadda dadkii kala dirteen ya oo kala dirteen oo boqorkii daarood shalay xushmeen weydeen oo shir guddoonka ku qabateen oo muqdisho oo maxaa ku raahdaa garowe idin ka go'ay oo islaamka 10 sano aanu garowe soo istaagin oo dadku og yahay dadkii dadina ku xigay oo sudaankii warsangeli oo waxa weeye shalay calaamada ka turteen oo wiilashiisu ka hordisheen oo saaka la taagantiin waa 40 kun oo laalusha siinayna waxa weeye de waxa ila tahay niman shiina iyo dad soo sahansaday baatihiin bay ila tahay waxa ka heshaan baa la arki doona in dani godobta uu xalay galay dadka u laayay magtoodan Cismaan Maxamed Warsangeli waxay ku tashadeen baa in sheegaya magtoodaysan Cismaan Maxamed raadsanayn boqor burhaan baysan ugu ergooneen maxay uga ergoodaan xafladiisa caleema saarka waa ku casimi waay islaan ciise u xiray oo u furay xafladiisa caleema saarka ma ba aha nin ehelki gacan ugu jira ma aha nin tolki gacan ugu jira waa nin arkaysa waa nin agency lagu shaqaysanayo way in kala ilaa in diri way marka Puntland reer Puntland walaalayaal dadku waa dad ehela Soomaalinimo ka sukow waa dad waxa weeye isku reer weeye halka daarood baa wada jooga marka hoos looga dhaco harti baa jooga waa Maxamed harti waa Maxamuud harti waa Saciid harti waa Axmed harti walaalayaal dadka maalinba mid baa seefalka Ciise Maxamed kula galeen oo ku laayeen caasimada intay maalin walba waxay ka cabanayna Muqdisho unukaale baa la yiri Muqdisho lama aamini karo caasimad ma noqon karto wartii jees ku yimi oo shalay iyadoo maxaa ku lahaa suuliyad aan lahayn la yiri waa caasimad oo markay birakoobeen ba adeer unukaale la isku dilaya maxaa Muqdisho ka hadlaysan oo daarood iyo hawiye maxaa ku lahaa 91 ku kala adkaadeen maxaa ugu doodaysa kuma doodi kartaan tii shalay banka oodka 98 markii la dagayay ya musqulaha la galo la isu banaynay sidii hindidii sabka loogu galayay ba adeer ba maanta sidaa ah ma garatay oo unukaale la isku leynaya marka maxaa hawiye looga doodaya laguma doodi karo marka reer Puntland waxa weeye waa yelwaayo baa la yiri waxa la yiri waa inagu aan is indhatirayn aaranjaan in dani iyo Ciise Maxamuud oo ay dhabarka ku hayaan beeshaas waxa weeye waxa ay dalka u geysatay waa la socotaan Warsangeli waxa ku dhacay wax badan baa ka horeeyay ha ka yaraadeen meedwaayo baa la yiri waa kaala siisido kii Warsangeli weeye waa kii u dameeyay una damayn mayaan sida wax ku wadaan Cali Salebaan bay u socdaan in diyaano iyo maxaa ku raahdaayay bahdir bay ula booca u kutubayaan oo BS bay u socdaan labada mid baa ku xigo oo ay gali doonaan wax arki doontaan in magaciisina shalay in saarax deer isagoo boosaasayado lagu weerari lahaa oo xabadu dhuunta taagan tahay iyaga yiri war laba dagaal mar moodo gali karnaa kana ku horeyn kaas ay noo damayo iyaga shalay yiri waa la socotaan in deerna isagoo difaac ugu jira nimanka nin ganacsada u daahimayaan gudoomiyahooda baarlamaanka cunay u daahimayaan marka reer Puntland walaalayaal aniga waxa ay sheegtaa Warsangeli waa tashanaya baranbu isugu tagaya ama dhulkiisa meel kale oo kamid ah dhul baante waxa weeye waa u yeeranayaan waa dad tolkooda waa dad isku khasban waxay isweydiinayaan warsaatan ma ku jiri karnaa mise waa ka bixi karnaa mise waa tashan karnaa waa dad isku duruuf aan nahay geel laba midig la maalay dhinacna uma bad qabo
dhinaca kana maxaan ku raadayay ciise ayna kala dhacay ciise maxamuud reer Puntland oo oran mayo ma jeertaan oran mayo maxamed salaam oran mayo dhinaca kana isaaq oo dhan iyo Soomaaliland oran mayo jeegaan bayna kala dhacaysa marka waxaan ku jirnaa inta qiyaamo inuu ku dhacayo ama ilaahay faraj kale inoo furayo mise waa ka tashanaa rag baa layna ka dhigay dhulbaantay warsangeli hadday suurta gasho qorshaha socda saas uu bisha inta lagu jiro isugu imanaya waxay u badan tahay inuu maamul dhisanayo bay u badan tahay mar haddii maamulkii 98 lagu heshiiyey waxba ka dhaqaaqi waayeen oo saacada waxa weeye seefta la isla dhacayo oo dhulkii goboladii maxaan ku la hoodeeyo u maqan yahay oo kuwii hadda Aranjan doobo waxyaabaha u dilayaan ay ka mid tahay oo Suudaanka sharafta uga qaadayaan warsangeliga Soomaaliland ka soo goostay gobolka gacantooda soo galay baysan rabin muuse la shaqeynayaan jeegaan bay la shaqeynayaan balaaya la shaqeynayaan waxay ay u dig iyo damleeyihiin oo saaka xataa qofkii warsangeli ahaa oo xanaaqsan oranayaan oo ay ku lahaayeen orad hargeysa si soco ay lahaayeen waa intaas uga dig iyo damleeyihiin shalay bay gobolka gacanta ka saareen markii la isu tagay oo harti iyo Soomaali iyo cid kasta garab ka heli lahaayeen ay kaceen oo la damcay tukana ilaalaas caanood inaan la istaagin waa la socotaan cidii dhabar jabisay waa la socotaan jimcaale yarka hadda baarlamaanka xalay weeraray yarka xalay baarlamaanka weeraray waa tii la lahaa soo bax taangiga Umar Maxamuud ninka gacantiisa ka saaray isagoo dadka dhan waxa oo dhan detailska anagu mawduuc kale hadda gali mayno marka waxa weeye warsangeli iyo dhulbahanti hadii ay taas u suurto gashay israacaan ama hadii warsangeli kaliya ay noqoto inuu wax yabyabto u malayn mayo reer jees inuu wax yabyabban kare waxa weeye waxa ku fiican tahay labada arrimood isku duruuf yihiin dhulbahantina muddo dheer waa doonay warsangeli isaga la family maxamuud ciise maxamuud baa wuxuu ugu sheegayn jiray inaga baa ma jeertan isla warsangeli iyo dhulbahante weligood qof iskaga ma dhiman xumaani ma dhex taalo waxaan ku iri meesh guriga dhulbahante waa seexanaysa waxa waa lagaaga soo dhaweynaya ka warsangeli sidaas lamida iyaga saa isugu diri jiray hadday marka maanta tashadaan oo dhahan maamul baan samaysanayna reer Puntland ki kala la hadlaya ma jeertaan ka kala la hadlaya boqoradii Cismaan Maxamuud baan la hadlaya dani war kala hadlimaye waxaan la accept marka laga reebay isaga waxaan la hadlaya Umar Maxamuud baan la hadlaya walaalayaalow warsangeli oo dhulbahante saaka qorshaha ay wataan waxaan kaga baajina ma haysaan maxaan kaga baajina dadka qofka bini aadanka waa ina oga Puntland baa la duminaya Puntland waa muqaddas Puntland aayad maaha shalay dadka kan isaga dhistay wixii ay dhisteen oo ku heshiyeen hadii laga dhigay mandarqiyaga lagu qowraco oo dhulkooda lagu bixinayo oo kuwii maanta iskood soo abaabulay la leeyahay waxaan ku iraahdaa waa Malaysia beeleed oo iyaga xabada la dhacayo oo la leeyahay isaaq ku laabta la leeyahay wartalow maxaa marka u diidantay inuu dadkaas tashado reer bari baan la hadlaya ma jeerteen oo dhan baan la hadlaya cali salama si waaqoon ha kala qaadin cali jibrahim Cismaan Maxamuud baan la hadlaya maxamuud iga ciise halka ciise waa cadi waxaan la hadlaya Umar Maxamuud baan la hadlaya walaalayaal dhulbaantay warsangeli waxaan maanta saaka ku celino ma haysaan ciidanka muxiyadiin hadlayo oo kan taliya qaybtoo ciise maxamuud hadlayo oo ay leeyihiin ciidan Malaysia aan meesha ku leeynay waa 4 gaari oo tiknika ah 3 dhoobadaale gudoomiyaha lahaa midna Axmed Karaash baa lahaa madaxweyne ku xigeenka lahaa ciidankii meesha ka dagaalamayo hoolka ilaalinayay 12 wiil iyo gaari ay wataan oo tiknika Axmed Karaash baa lahaa niman dhulbaanta ay ahaayeen marka ciise maxamuud cidii aysan u abtirinayn oo garowe timaado wajigooda aysan garanayn oo in hebel oranayn oo Muuse Ciise ama Maxamed Ciise ama Abubakar Ciise aysan ugu abtirinayn ajnabi bay u tahay ajnabi markuu hadalkoodu saan noqdo ajnabi bay u tahay marka reer Puntland walaalayaalow la isma lugoyn karo inta ka badan la iskama dabalulan karo ciise maxamuud idinku hadda dugsanaysaan idinkama xumaanayno dugsada cali saleymaan iyo majeerteenka iyo Cismaan Maxamuud iyo Umar Maxamuud oo hadda dugsanaysaan dugsada hadda dugsanaysaan laakiin warsangeli iyo dhulbahante waa tashanaya maamul buu dhisanayaa bedel aan maanta ku baajino ma haysaan weeye marka ilmaada reyaalo dadku waa ehel meel kala tagi maayo Soomaalinimo Muqdisho la isugu imanaya madasha maxaan ku raadayay maamul goboleedka la isugu imanaya fasaxa hadii idin waxba tari karin oo sida ogaadeenka ammaan kasta ugu sacabtumaysan idin ugu sacabtumayn bilaa calaykum lugooyada ka daay ciise maxamuud iyagu waa lugoynayaan waa habaar ku dhac waa ognahay waa iyaga Aranjan iyo la hadlimayno reer dhan oo aan isqabanayn oo qof ka hadlayn war saaka caaqil hadla ma la waay saaka oday hadla ma la waay faroole hadii
ري هذا عدو شير جرايد بقمن جرجيت كتمرت أبو كورد جري برساك هالو مقالة ديك بياله برساك هالو مدحوين الشوط اللي بالنقطة برساك هالو isagoo aan loo dirsan harti oo dhan oo maxaa ku raadayay halkaas wixii hanti ay ku burburiyay wakiilaha reer magaalada oo dagaalani galin jimcaha oo soo baxay wakiilaha bal saaka hadleen saaka Ciise Maxamuud bal qof shacaba gabarna Allah ka dhigay bal saaka qof ka hadlo ilma adeerayaalo ina anagu beesha dhan ina jaaifeynayno baa u qabtaan bal hal qof saaka ka hadlo kama hadlay siyaasi ma ka hadleen caaqil ma ka hadleen in dani shalay markuu baarlamaanka ka baxay Soomaali Maxamedey waa garamaya waxaan ka codsanaya ehel hadaan Soomaalina hadduu ka dhaxay luqadda hadaan isku fahmin dad islaam hadaan dubkaas hadduu ka dhaxay ilma adeerayaal fiidiyoga ay share garay marka Ciise Maxamuud taasa ku cadeynaysa waxa ka waxay isku ogyihiin inay yihiin maanta carmaha diini warsan galiya lagu dilo ilaa Cali Salebaan ay yimaadaan oo saxiixaan lama duugo nin gaakacayo daanta Ciise maxaa ku dhinaca maxaa ku waqooyiga oo leelkasay Umar Maxamed Dilayaan haddii qof lagu dilo kadalik boosaaso ilaa cidii kadalik haye Ciise Maxamuud saaka hawlka iyaga jibiibay marka walaalayaalow waxa weeye reer Puntland ka kala hadlaya Puntland waa baabaaday waa burburtay waa loogu talagalay annaga jeclayn maamulkaygii bay ahayd waa jeclayn inay wax la qaybsato dhiig iyo dhacaan baa loo soo huray waa shala ugu dameysay waa taa musalo soo dhabar jibinay oo Soomaaliya oo dhan ay ku amaanaysay ma garateen marka meesha shirkad bay noqotay shirkad Aranjan ay shirka ku tahay in daniye sidii uu tawfiiq nimankii sheekhaal uu gudoomiyaha ugu ahaa agaasimaha shirkadoodii ugu ahaa buutanna nimanka Aranjan iyo Ciise Maxamuud ugu yahay hadduu dadnimo hadduu leeyahay ya boqorkiisii baa wadanka uga soo tageen hadduu dadnimo leeyahay boqorkiisii ya baan dalka uga soo tageen ya nin waxa weeye waxa la yiri nin dameerkiisa ka dagay oo waxa weeye nin geeloodii ka tagay oo aan ilaalinayn oo geel reer kale raacay waxa la oran jiray maxaa la oran jiray war waa saqayo kaas saqayo way saqayo oo bixiyay saqayo Siciid saqayo waa saqayo way marka reer Puntland warsagal iyo dhulbaanta bisha gulihiisu tashanaya wallahi baysan ugu jireen ugu bahalkaynayn maamul goboleed bayna samaysanayaan fursadda ay meenta haystaan bayna ka faa'iideysanayaan dani waxa laga sheegay oo Aranjan laga sheegay nabadiyo nolol ba crash iyo dhoobo wado oo nabadiyo nolol crash iyo dhoobo waxay noogu taageeraysaa oo noogu wada waxay rabtaa nabadiyo nolol crashna inuu xildhibaanada dhulbaanta keensado dhoobana inuu xildhibaanada dhulbaanta keensado warsagal keensado oo 15 ka xildhibaan oo warsagal dhulbaanta leeyahay nabadiyo nolol ay halka kala baxaan danina xildhibaanada majeertaan kaliya loo daayo eega masiirkii baa waxa la rabaa dadka loo leenayaa masiirkii dadkii inuu matal lahaa oo Soomaaliya idin dhextagi lahaa baa in dani intuu in laayo wuxuu rabaa dad uu isagu dirsaday oo mushaharka qaato wuxuu u yeeriyo maalintuu dhaw Muqdisho ka kaalaya ku dhaw u codeeya buu doonaya waxaas uu idin baabinaya marka masiirkiini baa lagu loolamayaa meesha iska kaca baan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay farmaajo horta mareexaan baan hadlayaa mareexaan haddaan dad tolanahay haddaan ehelahay ma jeertay khayrini ma gelin Ciise Maxamuud khayrini ma gelin waa la socotaan waa kuwa maanta u aadeen dhabarka saaray bilaa calaykum mareexaano ninka farmaajo alla hadla warsagalay dhubantay maanta maamulka halo aqoonsado hala taageero inta ka dhaadhiciya mareexaano haddaan dad helanahay inta farmaajo noo gaarsiiya madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynow galmudug tacbaa gelisay hirshabeelle waa gelisay koonfur galbeed waa gelisay maamulkaas la dhisan doono warsagalay dhubantay waa dad isku filan deegaanka inta la eg beleeyihiin Puntland iyaga ka baaxad weynaanaya haddii inta hartay xataa aysan ka tashan oo Ciisaha la iskala joogo madaraqa la iska qaayibo xataa marka iyaga isku filan dadkaas waxa weeye xagbada haw galeen dahabkooda haw xaraasheen dekad Ilaahay baa siiyay wadooyin Ilaahay baa siiyay customka labada customer ugu badan oo lacag ka soo xirto hadeer marka dekada aboosho laga tago waa airportka Barmeed iyo Tukaraq waa la qaatay meesha ka sukaysa controlka ay dhigteen adiga ugu dhufo kaliya nacala sheedan ku yaal ugu dhufo waydina qoosay kaliya ugu dhufo wixii ka dambeeyay iyaga wadan laha khaatuma waa socon lahayd waa hore tagi lahayd shaabadii bay ka ilaaliyeen marna iyaga madaxweyne ra'iisul wasaare wadanka iyaga ra'iisul wasaare ka aha intii khaatuma firfir lahayd marka shaabadii bay ka ilaaliyeen marka war shaabada nimankaasi inta ugu hiil hawiye baa rabaa in halka kala hadlo hawiyow dad badan baa oranaya Puntland farmaajo wuxuu farageliyay Puntland buu farageliyay maamulka kale ka dhacno sameynaya war hawiyow reerka isu ka nadaay
بايد لنا نداية حلبانا هدو دني كم بلان قاعد مجرتين هدو حتى مجرتين وده صاهرو شن يتمن بولي شن أفر يتمن بولي ورسنجلي يربحانتنا شن يتمن بولي شن يتمن أفر يتمن هيسقف صنينا بايد لي هنجا ما أنت ورسنجلي يربحانتي وجذوب حكجليننا هبر جدير maalintii waxaan ka hayaa cali khaliif kale waxaan waagi ka hayaa khaatuma dhismaysay maamulka kaliya iyo cidda kaliya oo nagarib istaagto Soomaaliyeed oo xataa natabto dhaawar khaatuma ma loo yeero habar gidir baa war ma reeyalo fiqigi iyo ma talaadkii meelaha ka qaylin jiray war maanta Ciise Maxamuud iyo Aaran Jaani Dine cadaab baa dadka alla tusay war walaalayaal wax ka raacinina codadka anaga weydiiyay anaga idinka keenayna bari hadda tartamaysaan xildhibaanada marka la soo xulo hadda ka baqaysan farmaajo gacantiisa inay ku dhacaan war adigu anaga la soo weydiiyay أنا كتلن دونا نسوي ويدية سو حلوان ما حلوانك ما بطلان أنت تمادو بطلان بالا قرقر تمام مايا حلوانك مركل الصدر وشابد الصوصيو يا أنا على الصو هذلنا عدي أنا رهنا أقول ذي أنت أسأل لنا أنت أسألني قعد سنة وأنا ما كهوي مشرحين تاو حدونية مشرحي ماتوا ورسنجلي يو دول بانته ما ملكا بسنة ينكوري ما ذا بطلان بالا تكلم يا ده هاكو تلاقلو شن يتمن عد إنه خسارية تلاقلو ورسجل يربحانتو waxaan idin sheegayaa Puntland deegaana leedahay wax kama qabato irbad dun ma geliso waxa weeye midna cadow bay u gacan gelisay kii u dameeyo hadda cadowga aan ka soo saareenayna waka hadda rabtaa leedahay taga marka waxaan idin leeyahay anoo hadal ilma ay reeyal sheer garay waxaan idin leeyahay Puntland maxay idin kala lataa ilaa waxna idin ma tarto waxba idin ma qabato magacu maxay idin ka dabalultaa Puntland waxay idin ka dabalultaa ana idin sheegay inay miiska gorgortanka Soomaaliyeed in la fariisato xildhibaanadiina halkii ay idinku dad tayale as dirsan lahaydeen oo Soomaali idin kula gorgortama ya inay idin soo xulaan dad baaba inay idin soo xulaan dad baaba iyagu idin soo xulaan oo ay wuxuu yeeriyaan warsangal xildhibaan buu leeyahay Muqdisho fadhiyaan ما هاد سلاد أركتي واتقانين فقه واتقانين حلبان ورسنجلي قفك يقان هالكا هاي وشقر حلبان ورسنجلي قفك أركا مالكي إذا عدك هالكا هاي وشقر ما دعضو صوبتو بحيتها صوبتو حوية ضد بلا طيابة لقية مجرتين با واحد كدمية وبوتلان با كدمية صوحة إيقو شقر حلبان ربان تاعه أو مقعيس أقرانيسان هالكا هاي وشقر حلبان كان للكساس كريو ولا يقانا حلبان كعيسى محمود على حوش ولا يقانا بل حلبان ورسنجلي ربانتي leeyihiin oo Muqdisho jooga oo dadka dhaqaaqaya dhinac codaya bal aniga halka ay ugu soo qora ma jiro muxuu jiri waay waxa la geenayaa dad baaga muudaa kuuliyo baaga daarta saaran baa laga soo rogaya markaas la oranaya xildhibaan baa laga dhigay markaasuu dhulkuba la wareegayaaba markaasuu Muqdisho markuu tago mushaharkiisa soo ilaashanay madaxtooyada kuwaan gelin baa la sheegay marka waxaan idin leeyahay waxaan kaloo idin sheegaya Umar Maxamuudow dekada halka dhisanayseen waa leeyahay soo duceey heel baa laga galay war maanta Ciise Maxamuud iyo Aaran Jaani iyo Deni warsagal rubaanta u jibinina dekada garaacad cadowga koowaad ee leedahay waa Ciise Maxamuud iyo Aaran Jaani iyo Deni weey waxa la socotaan hobiyo dhismaheeda inay wadaan shalay dhagax dhigeeda inay ka soo horjeedaan baa la socotaan waxa la socotaan maraakiibtii alaabta siday inay ku xanimeen Suez oo dhaheen qalabka dekada lagu qarxinayo wuxuu u gacan gali doonaa argagixisho u gacan gali doonaa baa la socotaan marka ilma reeyalow Puntland aayad maaha meela wax ka qaban kartaan ma joogto xildhibaankii wakiilka ah soo dirsateen baa shalay loogu hanjabay idinka gaalkacay ka qaylinay oo la garow anaga lahaan jiray ka qaylinay marka ilma reeyalow maanta waxa weeyaan durbaan yar oo qabiil hadda la inii garaacan dad ehela dadkooda yahay ninka Ciise Maxamuud intuu ku jiro iyo kan rubaantii ku warsagalay ninka Umar Maxamuud intuu jiro waa kii alla wax ka dheefsiyo odayga ka ku saddex isugu tagay ya marka waxa weeye yaan durbaan qabiil inta la kursigeeni Maxamuud Salaamaan baa lagu soo durbaan Puntland Aaran Jaani Ciise Maxamuud iyo Deni waxay shirka ku yihiin 5 sanana inay qaybsadaan 5 soo socota Ciise Maxamuud inay abgaal inuu meesha u fariisto baa lagu shirkay 10 sano oo cadaaba يا 10 سنة عذابة تضرب بلود بدك أتكسر أي 10 سنة عذابة ده نيكي كنت لقلي إنه محاكر هذا نيكي كنت لقلي إنه 10 سنة عذابة تجو والعذابة كنت عشته إله جهنم يجي جهنم سوى لقى بدو عشته إله جهنم يجي كنت عشته دوا جهنم تركب دونا
marka 7 bilood baa dadka adkaysanaya bari baa laga qaylinaya karkaar baa laga qaylinaya boqorkii daarood baa dulmiga halka jira u adkaysan waayay oo dadka ka dul ooyaya iyo ergadaas iyo ku badan soo qurba jooga islaam bashiir baa sida waa la socota marka ilma adeerayaalo ismaan maxamuud boqorada saasaan leenahay war meesha dulmi baa ka socda war dulmi ninkii taageera war isaga wallahi isaga ka shalayn doona علي سليمان BDG baa loogu socdaa NDG Nugaal Development Group baa Puntland Development Group lagu bedelaya way ogyihiin xabada dhunta ugu jirta way ogyihiin marka waxa la yiri ninkii qeyrkiis loo xiro adna soo qoyso Ahmed Karash hadii aan xilka laga qaadin u maleynay in xilka hadda ka qaadayaan hadii aysan xilka ka qaadin marka gudoomiye gacan ku rumis ay sameysteen oo haystaan adeega laga goosanaya maaliyadana waxa fadhiya maxaa ku raadayay waxa fadhiya in abshgaal baa jooga markay madaxweyne ku xigeenka isqabtaan gudoomiyihii dhoobo oo intuu u garnaqo waliba isagoo Ahmed Karash dhabarka garabka ku haya isu keenayo oranayo wariyaadina waa gardaran tahay meesha ma joogo gudoomiye waxa jooga gacan ku rimisa baa jooga oo dani garabka saarayo dhaay Karash halka ka bax oranayo ya maashuur baa bixisa maxamed jirteen waxa ugu haysta oranayo ka mid docaas soo wadan Ahmed Karash waxaan leeyahay ninkii qeybkii loo xiro adna soo qoyso Karashow intaan wiil laga leen inta noo shahay ya meesha iskaga tag oo ka tashabaan kulay waa kula talinaya kaale madaxweyne u noqo warsagalay dhulbaanti hogaani oo dani ku xigeenka nicda inta uga tagto adoo waxa weey taariikhda ku xus doonte madaxweyne ya magaca doonto u bixiyo oo warsagalay dhulbaanta ay soo fariista miiska wada hadalka isku wada fariista Ahmed Karash intaas aan leeyahay fulay guli ku dhaweeyda raganimadu waa yar walba dhulka lagu hayo intaas aan maxaa ku raada ku leeyahay warsagalay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka u tartamo ninkii kursigiina adeerkii lagu dilay lagu ihaameeyay suldaankiisa lagu xabadeeyay ninkii u tartama oo halka taga gabadhiisa wallahi baan loo guursanay in gumeed dhalay baa la qoraya ya taariikhdu iyada is qoraysa kuwa hadda maxaa ku raadayay beelaha la hayb sooca oo dadku ku abtirsada oo galaana taariikhdooda ka sheegi doona insha Allah taala oo ordaya waa la sheegaya laakiin de warsagal isaga cadeynaya abtiyaha dhabtaan waa la keenaya waa la soo qufaya ومنقال ورسلطانو هدير تاسي آرنجان إرقاكو صدرين هدى إنو كلا فرديان ما فيليا تليفون باكو وصعدا عبد الرشيد يوسف جبريل أو نير قرادة أو علي قرادة أو رير عولة أو إن أدير كابان قدومي بارمان كاقر دينا أفرتن كاقانا قادو بكليين ساسين ميكس تمرينيا وضيق انت أسنانكو حالة مستورين إنا ورها قادم باكولي ورها يالين باكولي ورشرفت هذا كرع باكولي ورقدوميها دوبك كان لقا قاضي iyo ka ay rabaan inay saaraan oo adiga ku qanciyaan maxay ku kala duwan yihiin suldaan warsangali baa tahay dadku waa ku shiban yahay kana waa nin Umar buu ah waxa weey adna Umar baat garaa Cabdalaati garaa Yusufaati Ali Dablati maxay ku kala duwan ma Cabdirashiid Yusuf Jibriil iyo dhoobo ya baa midna ay xasanaysa oo habeen ku raacaysa midna habeen kaga tagaysa isagoo ogtahay ihaanada lagu dhuftay wiilashiisii la dilay laga xishoon saacada gurigiisa lagu baalkaysay marka waxaan ku leeyahay Sudaanow Aranjan sharaftay ka qaadin afartankoodana kadib ilaahay baa wax ku siiyay dad dhan oo qaran ah oo taajir leh oo mutacallil leh oo nin wax leh oo mid alla wax siiyay leh baa madax u tahay adaa haysta bankiyada ku ceegaaga iska daa markaan ku leeyahay afartanka ay ku leeyahay afartan la way afartan baa siinayna horaan u siin jirnay oo liisas kaga qaadan jirnay iyo in garaad baan maxaa ku raa in Yusuf Jibriil baan ku qarcinayna kada Sudaano baa ku leeyahay kada warsagalay dhulbaanto tashada reer Puntland habar jaclay Muuse waa ka baalay reer Puntland Ciise Maxamuud iyo Aranjan iyo dani waa u jeedaan dadka yaan la culaadin warsagalay yaan la culaadin dhulbaanto yaan la culaadin cid kale yaan la culaadin Puntland wixii ka xumeeyay ada iyaa ka xumeeyay marka intaasaan idin leeyahay dadka 3,000 oo idaawanaya dadka sharafta leh oo daawanaya oo 3,000 ku dhow waa ka baxaya waxaan idin leeyahay oo waxaan ku daraya sababta warsangali uusan dadkii halka lagu laayay cid kale ugu haysan waxa weey ninka labada nin oo dani amarka ka soo saxay weynii sheeg askarta dadka laysay waa Ciise Maxamuud waa Jimcaale iyo Muxyidiin weey iyo kii taliya qaybta ay wateen weey waa askarta Ciise Maxamuud baa dadka laysay oo meesha ugu dhacday nin Cismaan Maxamuud yar madaxtooyada ka socda la socday baa la sheegaya marka saas weeye Jimcaale tuqaraq inuu baahubka loo siiyay oo ku xoreeyo inuu baarlamaanka dib ugu soo laabto looma siin waydi salaamay waxaan idin ka codsanayaa
fiidiyoyadeen waa badan doonaa waa baraarujin doonaa waxa reer Puntland oo dhan baan la talinaynaa meesha tan ha laga kaco ha laga tashado baan leenahay ciidan loo wado halka shirkad bay noqotay reer baale koox baale ninka in dini ah bay waxa way saarteen shanta damo soo socotan iyaga leh oo meel bay ugu qorantay waa la socotaan hagbada iyo dhaqankeeda waa taqaaneen marka waa hadli doonaa ma aamusi doono waxaan idinka codsanayaa warsheerta yaan la igala bakhayn wa assalaamu calaykum wa intaanay oran 3,000 oo idaawanaysa mid kasta ha isi sheekarayo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu Soomaali dowladnimada Soomaaliyeed garowa laga haystay garowe laakiin garowe annaga ka fujinayna insha Allah ta'ala Soomaali taa ku bishaarat layga lama tashan ya waxa kana yuski waa maamul goboleedyada daacada oo danta Soomaaliyeed u orda ya oo xalaala baa la sameynaya insha Allah ta'ala wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu